shirweynaha ayaa ka tashiga beelweynta Warday Cali ee degta Jubbooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay waxgaradka siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada beesha oo isugu jira rag iyo dumar. Shirkan ayaa waxaa beeshu kaga hadashay xuquuqdooda siyaasiga heer federaal iyo heer maamul goboleed ee kaga maqan Jubbooyinka. qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa ku fogaaday ka hadalka wax ka qabashada cabashadooda iyaga oo fariin u diray dowladda dhexe gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. shirka maanta inoo furan oo halkan maanta aan iskugu nimaanay waxa uu yahay waa in ay cid iskugu sheegtaa waxa ka maqan iyo waxa ay haysato. ma ahan inaan qof ku cambaareyno, ma ahan inaan qof gooni aan ku ataagno. waxaan rabnaa on leenahay oo kaliya inaan wax naga maqan aan ku raadsano. cid xaq bay leedahay ay ku leedahay ama dawladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleed ha noqdo ay ka soo jeedo xaq ka maqan in ay hesho ayaan u baahanahay. dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble waxaan u sheegaynaa xuquuqda beeshan ra'iisul wasaare Roble waxaan u sheegaynaa maadaama uu yagleelayo geedi socodka nabadan iyo dib u heshiisiinta uu hoggaanka asaga u hayo beelaha xuquuqdooda la duudsiyay laguna tumanayo inuu dib u eegis ku sameeyo raggan maanta oo deegaanka jooga oo maanta maamulada sheeganaya oo deegaanka maxallaha ay ku abtirsanayeen beeshani xuquuqdoodii ku tuntay waa inay iska hor keenaa oo la wada hadlaa waxa beeshan ka maqan xuquuq ahaan inay u helaan xaq ay u lahaayeen in dib u eegis lagu sameeyo taasaan ka codsanaynaa. waa ma meesha la yiraahdo Warday iskale nin walbana waa ogeey Axmed Madoobe haddii annaga oo Warday ah maanta aanan waxba ku lahayn waamo ee aanan meesha la yiraahdo waamo waxba ku haysanin oo ciidanka meesha joogana annaga aan leenahay aad iyo aad baan ugu xilqoonaa arrimahaas haddii Ilaahay idmana maanta laga bilaabo ayahana inaan ka tashano wixii nala gudboona aan qabsano oo ku tala galsana haddii Ilaahay idmo ayaan laga qarsanin waad aragtaan ummadda meel walba taagan oo waamo ka soo jeedo oo magaceena meelba lagu dhajisanayo inaan nahay boqortooyo 500 oo qarni ayaan soo jirnay awowyaalkeena ku duugan maantana anaga heer waxaan tahay inaan banaankaas ka taagana. Maxamed Xuseen Roble waxaan ku sheegayaa dawladda Cabdiqaasim laga soo bilaabo ilaa maanta la joogo bariba marsalaan waxaa loo diraa gobolka Jubbada Hoose waraaq meel lagu qoro aan la ogeyn laga hor keenaa waxaa la yiraahdaa saasaan wax ku maamulnaa anaga oo saasaan wax yeelnaa. war waxaan idin sheegaynaa qoraalka iyo taariikhda inaad hoos u gashaan beeshan beel nabadeed waaye dad badan baa hadda wuxuu ka dhawaaqaya muxuu ahaa waxa nagala doonay waa naga leeyahay annagu hadda dagaalku ma baaqayno waa beel nabadeed maanta haddii la dhaha maxaa beeshaas maxay qabtaa oo dala oo ay dishay 5 kama badnaanay oo kama ku dhintay wax ma dhacda wax ma disha wax ma hadda soo waxa gartay maaha haddii ummadana waxaaba dhibaysaaba waxaa dhibi nabadda dhibaysaa oo ninkaan nin dilin waxba maaha. gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin beesha Warday Cali ee ku abtirsata beesha Dreed waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdiraxmaan Ismaaciil Soomane. waxa uu shirku aydayaa in la sii joogteeyo wada tashiga dal iyo dibad ee beesha. 2 waxa lagu soo dhaweynayaa dadaalka ay xukuumadda u hogaamiyo ra'iisul wasaare Roble u wado ee ah xaqsiinta dhammaan qabaa'ilada kala duwan. 3 waxa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hogaanada beesha inay ku dadaalaan in beeshu hesho wax ay xaq u leedahay. 4 waxa sidoo kale loogu baaqayaa madaxda qaranka iyo hoggaanka maamulka Jubbaland in beeshu hesho waxa ay xaq u leedahay ee waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya. 5 beelweynta Warday Cali beesha Warday Cali waxa ay si gaar ah u tabanaysaa in aysan helin hab maamuuskii ay beeshu ku lahayd deegaanada Waamo. Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho.